tuucan saaxiibayaal waxaad daawanaysaan Himilo TV waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo ku soo laabtay magaalada Muqdisho sanadii dhowr bilood oo ku maraa dalka dibadiisa muxuu la soo laabtay muxuu filayaa doorashada 2026 ka dhacaysa dalka sidoo kale waxaan falaqayn doonaa wararkii ugu dambeeyay shirka golaha wasiirada oo si guud looga hadlay xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka golayaasha deegaanka oo bishan November dabeeqadeeda bilaaban doonta iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa gudoomiye Mungabo fashil iyo ceeb dhex taagan kadib markii lacago iyo xilal badan uu ku bixiyay in kaliya lagu dhawaaqo inuu yahay musharaxa xisbiga GSP qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa muuqaalkan balse marka hore saaxiibayaal nagu soo beer oo subscribe saaro YouTube-keena Himilo TV si aad u hesho macluumaadka iyo xogaha la xiriira xaaladda Soomaaliya iyo caalamka haddii aan ku horeyno Farmaajo waxa uu ka degay gudaha magaalada Muqdisho maanta hase yeeshee waxay u muuqataa inuu wajahayo garab la'aan siyaasadeed muxuu la soo laabtay Farmaajo muxuu yahay qorshihiisa ugu weyn oo ku doonayo in dalka iyo dowladnimada Soomaaliya ku soo kordhiyo kadib doorashada dhacaysa dabeeqada bartamaha bisha May ee sanadka 2026 madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Farmaajo ifdu hogaaminayo ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Nacade ee gudaha magaalada Muqdisho halkan oo si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa xildhibaano siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo soo laabashada Farmaajo ayaa horey loo sii ogaa waxaana soo dhaweyntiisa loo xil saaray guddi gaar ah oo si loo maamuuso maadaama uu dalka maqnaa muddo dhowr sano ah Farmaajo oo in muddo ahba dibajoog ahaa ayaa soo laabashadiisu waxay dhalisay hadalhayn xoogan iyada oo siyaabo kala duwan looga falceliyay dhanka baraha bulshada oo la xiriirta in uu ku soo aaday xilli gabaabsi ah oo uu saameyn badan ku lahayn xaaladda siyaasadda ee waddanka sidoo kale imaanshiyaha madaxweynihii hore ee dalka ayaa la xiriirta soo guriyo noqosho iyo arrimaha siyaasadda maadaama la gelayo doorashooyin adag oo dhowaan bilaaban doonta sida haddaba muuqata magaalada Muqdisho ayaa u muuqanaysa in haatan ay galayso marxalad cusub waxaana ku soo qulqulaya siyaasiyiintii ugu badnayd ee jilbi culus ah kuwaas oo hanqaltaagaya qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya waxaa kale oo jirta in la dhisay ururadii ugu badnaa iyo isbahaysiyo cusub si ay loolan adag ula galaan madaxda villa Soomaaliya iyo kuwa maamulada oo iyana sameysay hal xisbi weyn oo ay ku mideysan yihiin Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad siyaasadeed oo cakiran waxaana la isku hayaa doorashooyinka qof iyo codka ah ee ay qorsheynayso villa Soomaaliya ayna diidan yihiin mucaaradka iyo labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland haddaba Farmaajo uu soo laabtay muxuu la soo laabtay waxay dadka qaarkood leeyihiin waa fashil siyaasadeed iyo garba la'aan xooggan uu wajahayo inuu sanaysan saameyntiisa siyaasadda xilligiisii ololaha doorashada ee 2017 iyo 2022 iyo inuu hadda yahay mid aan wax badan ka keeni karin doorashada dhacaysa Farmaajo ayaa noqon doona siyaasiga ugu joogitaanka yar dalka gudihiisa Farmaajo wuxuu dalka maqnaa 3 sano iyo bar marka laga reebo maalmo kooban oo uu safar hore dalka ku yimid markii uu noqonayay madaxweynaha sanadkii 2017 wuxuu dalka ku sugnaa 1 bil iyo 20 maalin Farmaajo waa nin caan kuwa siyaasadda shacbiyadda taasoo ku dhisan xeelad dhagareed hal ku dhig wadaniyad qeyro qab soo celin ah iyo go'aano qaristurnimo ah shacabka lagu soo xiragelinayo kadibna fushado dana siyaasadeed oo guraacan nidaamkan waa mid dunida caanka ah waa kan uu Donald Trump iyo madax kale oo badan ku soo baxeen wuxuu kaloo ku dhisan yahay in xogta la xakameeyo xogaga wadaniyiin iyo kuwa dadka u caaya la adeegsado say u baahiyaan fariimaha shacabka lagu marhaabinayo loona dhiso humaag been ah oo ka dhigaya badbaadiyaha qaranka kuna salaysan dareen caadifadeed oo ah ama aan la sharxi karinba lana sababeyn karin waxa ay tahayba markii uu madaxweynaha noqday Farmaajo wuxuu la soo baxay wajigiisa dhabta ahaa iyadoo ay kala tageen inta badan maamulada dalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo xitaa ay ku jiraan madaxweynaha hore kuwa ay ka tabanaya dhibaatooyin siyaasadeed inuu u geystay ama uu ku weeraray guryahooda iyo sidoo kale garoonka diyaaradahaba iyagoo markaas ku wajahan qaybo kala duwan oo gobolada dalka Soomaaliya ah Fahad Yaasiin oo ahaa geed fadhigiisii ugu weynaa siyaasadda garabkiisa ka baxay wuxuu dhistay isbahaysi kale iyo xisbi kale oo siyaasadeed wuxuu dhistay ama soo sharaxday Saacid oo markaan musharaxa madaxweynaha xisbiga Heebad Qaran waxaana ay u muuqataa in Farmaajo markan uu yahay agoon siyaasadeed wax badan ka goyn karin siyaasadda doorashooyinka 2026 ay leeyihiin daga badi falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya
dhinaca kale waxaa ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya maxaa looga hadlay maanta xilli xaaladda doorashooyinka iyo xasaasi kale oo siyaasadeed taagan yihiin xukuumaddan ay qaadanayso go'aano u muuqata inay yihiin kuwa aan loo dhamayn golaha wasiirada Soomaaliya oo shirkoodii caadiga ahaa maanta ku yeeshay Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo xasaasi oo ku aadan xaaladda guud ee dalka amniga iyo dhacdooyinka argagaxa lahaa ee dhawaan ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya shirka golaha oo gudoominaya ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa ugu horeyn warbixino la xiriira ammaanka caasimadda iyo guud ahaanba dalka waxaa looga dhageystay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo uu weheliyo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Macallin Mahdi Asadiyaano iyo Macallin Mahdi ayaa warbixintooda ku soo bandhigay horumarka laga sameeyay sugidda amniga iyo qorshaha lagu xaqiijinayo amniga doorashooyinka golaha deegaanka gobolka Banaadir ee dhawaan la qaban doono dhankooda golaha wasiirada ayaa si weyn u bogaadiyay guulaha ay ciidanka qalabka sida ka gaareen dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee Shabaab iyo Daacish ee dagaalada joogtada ah lagula jiro koonfurta iyo bariga dalka Soomaaliya waxa kale oo shirka golaha wasiirada lagu cambaareeyay dhacdooyinkii ka baxsanaa dhaqanka iyo diinta suban ee islaamka ee lagu dhibaateeyay shacab barimageeda ah iyadoo xukuumaddu ay fartay hay'adaha amniga iyo kuwa garsoorkaba in sharciga la horkeeno cid kastoo ku lug yeelata falalkaasi xadgudubka ah dhacdooyinkan ayaa si gaar ah uga dhacay aagga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose iyo qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya gaar ahaan Galguduud oo aanooyin qabiil loogu laayay hooyooyin iyo caruur ku sugnaa gobolladaasi waxaa lagu laayay sidoo kale dad rayid ahaa oo dumar iyo haween u badan iyaguna qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya oo dhibaatooyinka aanooyinka qabiilka ay leeyihiinna ay muujinayso in xitaa ay gaartay heer la beegsanayo barimageedada iyo dadka marasta ah oo dhammaanba ka hor imaanaya damiirka dadnimada dhaqanka iyo asluubta suban ee diinteena islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeedba arrintii ugu dareed waxay ahayd markii jirdil iyo gubid la isugu daray Isaaq Daawud oo ahaa oday da' kaas si arxan darro ah loogu dilay laguna dhaqmay deegaanka duleedka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana hadda u muuqataa in dawladdu ay arrimahaasi ka hadashay inkastoo dhawaan la soo xirxiray dad ku eedeysan inay qayb ka ahaayeen falkaasi argagaxa lahaa ee lagu dilay odaygaasi waayeelka ahaa dabna lagu qabadsiiyey hase yeeshee weli lama horkeenin cadaaladda iyo hay'adaha garsoorka ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Banaadir Mungaab wuxuu wajahayaa fadeexad weyn oo musuqmaasuq iyo ku tagrifal xoolaha ummadda ah sida hadda u muuqanaysa Mungaab ayaa $50,000 iyo ka badan ku bixiyay in kaliya lagu dhawaaqo in isagu uu yahay musharaxa xisbiga JSB ee madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaamiyo sidoo kale 10 xilal oo agaasimiyaal ku jiraan ayuu siiyay mas'uulkii shaqadaasi u qabtay Xuseen Sheekh waa xogeeye ku xigeenka xisbiga JSB wuxuu ku dhawaaqay madal dhawaan ay isugu yimaadeen xisbiga JSB oo la doorasho ahayd in Mungaab uu yahay musharaxa rasmiga ah ee xisbiga cadaaladda iyo wadajirka ee madaxweyne Xasan uu hogaamiyo ee JSB arrintaas ayaa lagu ogaaday dhaqaale badan iyo xeel uu ku bixiyay Mungaab sida aan hayno cadeymo iyo nuqullo ka mid ah waxyaabihii isdhaafsan labada dhinacba oo Himila TV gacanta u galay sidoo kale arrintan waxay kala qaybisay xisbigii JSB waxaa bannaan ku soo baxay xubno siyaasiyiin oo si cad u sheegay inaysan ahayn wax la aqbali karo in hal qof uu qaato go'aanka xisbiga sidoo kalena hal qof uu qaato qalinkii xisbiga Mungaab waxay u muuqataa inuu noqday dab lagu gubayo xisbiga laguna kala geynayo saaxiibo siyaasadeed oo 10 sano ka badan soo wada ceeshay maanta say u muuqato inay kala geynayso dan dhaqaale iyo arrimo kale oo Mungaab u marsaday in lagu dhawaaqo amal shaaciin isagu yahay musharaxa rasmiga ah ee xisbiga cadaaladda iyo wadajirka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hogaamiyo maxay ka dhigantaa dabaarintan miyaase la aamini karaa doorasho ay diidan yihiinba isla xubnihii xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidaas loo aqbali karaa arrimaha doorashooyinka siyaasadda hadda la isku hayo fikirkaagii waxay kula tahay qaybta commentiga wararka iyo kuwa kale oo ku soo kordhana waxa ku daawan doontaan YouTube-keena qaybaha kale oo muuqaalo kale aan ka soo baahin doono isla xaaladda gobolka Banaadir oo muuqatay markan Friday ka sii bixayso tan iyo kulan dambe waxay idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo